subax wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii subaxnimo ee faaqidaada aad uga barateen shaashada telefishinka raadsan. waa subaxnimo talaado ah 21 Diseembar 2021. maxay yihiin haddaba qodobada ugu waaweyn oo aanu saaka idinka hayno dalka iyo dibaddaba? waa tahay aan ku bilaabe waa muhiim inaad baratid qaar ka mid ah xirfadaha aasaasiga ah ee lagama maarmaanka ah. waxaan warbixin idinka haynaa maamo qaali oo ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo 15 sano jirkeedii markay ay ahayd baratay xirfadda darawalnimada ee sida loo kaxeeyo gawaadhida. waxaa warbixinta tan inooga soo diyaariyay degmada Baardheere oo halkaas kula kulmay maamo qaali wariyaheena Cabdikariin Raashiya. maamo qaali Axmed Nuur waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gedo. waxa ay ka mid tahay hablaha caanka ah uguna saameynta badan magaalada Baardheere, iyadoo oo 15 jir ayay bilowday wadista gaadiidka noocyadiisa kala duwan. daawadayaal waxaan ku sugannahay bartanka magaalada Baardheere. waxaan halkan kula kulannay maamo qaali Axmed Nuur oo ka mid ah haweenka degmada Baardheere. waxay muddo 30 sano ka badan ay ahayd darawalad ku shaqaysata gaadiidka heerkiisa kala duwan. maamo qaali ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Raadsan TV adigoo naga warbixinaya marxaladii aad soo marday, heerkii gaariga aad ku baratay, waqtigii danihii ku geeyay. ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Raadsan. ما شاء الله in badan baa hortayda salaamaya walaalahii qaaliga ah muddo badan baan baabuurka waday. wax daruuf iyo dhib ii geeyay ma jirin, laakiin hobigayga ka helay inaan darawal noqdo. 15 sano jir markaan baabuur baranay steerinkiisa kadib baabuur badan oo aniga leeyahay waan haddana gacantayda ku soo waday. ma sha Allah kana haddana ii dambeeyay wax caqabad ah mar hadda ka hor baabuurka iska dhig iyo camal wax saas la yiri waa jiraan, laakiin cag uma dhigino baabuur ma dhaafin weligeey saan la ogaday midkayga haddaan wadin xataa mid ehliyada ay leedahay wadanaaye. alxamdulillah waan fiicana wax dhib oo hadda oo caqabad igu haysa ma jirto. waxa wadataa muddo 30 sano ka badan. 35 34 meelaha sano. 30 iyo biyo sano waa dhanta intaan wada baabuur. gaariga ka kaliya miya gawaarida aad wadi karto mise gawaarida heerarkeeda kala duwan waa kaxayn kartaa? baabuur ayuu xataa bajaaj waan wadi karaa. macnaha mootalaba lugoleeda ay dhibaysa mahane. waxaan dhaafay bir ma jirto. inta kale waa inta kale waxay karaa. waxaad iga warantaa caqabadaha xilliga aad baranaysa iyo haddeer isku waqti ma aha. haddeer waxaa jirta dana gaar ah oo qabsan karo aan gaari la'aan u qabsan karin baa laga yaabaa. waxyaalaha noocaas oo jira banalada. hadda horta sidii runta aniga hadda beer baan ka shaqaystaa, beeraley baan ahay. marka baabuur kan waa kii beerta. baabuur kale waxaa jiro oo asana baabuurka raacado magaalada u soo danaysto oo magaalada ku soo qaato oo magaalada u soo aado. laakiin kan saaka u dambaysa qudaar baan ku keenay. marka ma tilaama gadin karo beerta inaan ku jiro inaan baabuurka saarana inaan guriga joogo ma ahane. macnaha waan la qabsaday baabuurka waan la qabsaday waditaankiisa waan la qabsaday. wax cilad oo hadda igu yimaadana ma jiraan. baabuurka hadda igu ciladooba ama ay lugu iga bajarto qof uma yeeranay anaa samaysanaya. alxamdulillah intii tabartii waan ka bartay. maamo qaali ayaa haweenka si gaar ah hablaha daada yar ku dhiirigelinaysa inay bartaan kaxaynta gawaarida si aysan ragga ugu baahan marka ay gaari helaan. aniga waan jecel hadda aniga sidii gabar aan dhalo kale oo hadda maqan waan baray, anaa baray gacantayda ku baray. waxaan kaloo jeclahay inaan gabdhaha baro. weliba waan u sheego waxaan iraahdaa gacantiinaad ku cilbixi kartaan. dhinac shaqo, dhinac baabuur, wax walbo inta uu nin qabtay naag way qaban kartaa. ifaante qabsada gacantiina inaad ku qabsataan baabuurka aad gacantiina ku wadataan. darawal inuu hadda wax uu ku wado wax micno ma keenayso, laakiin adiga haddaa wadatid dantaad leedahay soo qabsan kartaa. laakiin darawal wuxuu ku leeyahay isug waa nimaana dan baa qabsan karta. marka alxamdulillah hadda waan ka kaaftoomay aniga darawal makaanig inaan culays weyn uu motor iiga yimaado ma ahane. lug la bedelaay iyo gaari kululaaday iyo wax isfiiriskiisii ma sha Allah. alxamdulillah magaalada subax walba u cusbahay. islaanta baabuurka wadato ali leeyahay, laakiin waxaas dhag uma dhigatayda aniga ka badan. laakiin subax walba waa cusbahay, laakiin subax walba
bulshada waji kala waji kale aan u leeyahay mid kale cilad kale waxa jirto hadda hadii aan gaariga aan dhigo oo lugeynayo ma yaqaanaan magacayga laakiin hadii aan baabuurka wato ma maqaali ilayeen kulligood haddaan soo dago oo lugeynayo magacayga ma yaqaanaan dad kale bulshadayga ma yaqaanaan baabuurka igu barteen bas marka kan waxa iigu horeeyay baabuur saaf ah yaa kan iigu horeeyay gawaarida weyn isku tiin birka wallahi waa inta tabartayda waa kaxin karaa safar bayaan gelin baabuurta waa weyn laakiin kuwa yar safar waa geliyaa automatic kaliya kuma yakidi ha baabuur aan lug saari karin waxa ka jira mootada laba lugooleeyda bajaajkan hadda waa kaxin karaa xirfadda wadista gawaarida waa mid ay u badan yihiin ragga walow sanadihii dambe ay ku soo biirayeen dumar aad u fara badan waa markii ugu horeysay ee gaari qof dumar ama qof haween ay wado aan lugteeda saaro maama qaali waa maamo ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gado waxa ay muddo 30 sano ah wadataa gaadiidka Cabdikariin Shire Maxamed Cabdikariin Raashiya Raadsan TV Baardheere ee gobolka Gado waa tahay haddaynu intaas kaga soo laabano maamo qaali haatanna aynu eegno dhankaas iyo Itoobiya madaxweynaha kooxda TPLF ee Debretsion Garbamachel ayaa waxa uu amar ku soo rogay inay ciidamadiisu ka soo baxaan furinta dagaalka isagoona sheegay inay yimaadaan xadka gobolka Tigreega sidoo kale hogaamiyaha fallaagada waxa uu sheegay inay TPLF maanta diyaar u tahay in la soo afjaro dagaalka ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda Itoobiya miiska wada hadalkana la isugu wada yimaado isagoona soo saaray 3 qodob oo kala ah inay ciidanku ka soo laabtaan furinta dagaalka iyo in ay TPLF diyaar u tahay in la wada hadlo oo dagaalka la soo afjaro iyo isagoo sheegay in halka maanta yaalayahay sidii xasiloonin looga dhigi lahaa dalka Itoobiya wada hadalna loo furi lahaa iyaga iyo Itoobiya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay oo laga helayo ayaa waxay sheegayaan inay durtaba ciidankii TPLF ka wada baxeen furimihii goobihii ay ku sugnaayeen ay ku horfadhiyeen ciidanka Itoobiya bishii hore ee November ayay ahayd markii uu gudoomiyuhu sidoo kale uu soo saaray 3 shuruudood oo uu ku xirayo xukuumadda uu hogaamiyaha u yahay Abiy Ahmed 3 shuruudood oo ahaa in ciidanka Itoobiya 3 maalmood gudahood ay isu soo dhiibaan xoogaga uu madaxweynaha u yahay ee TPLF Addis Ababana ay u jiraan 16 kiiloomitir sidoo kale qodobka labaad ayaa wuxuu ahaa inay hubdhigis sameeyaan ciidanka Itoobiya qodobka saddexaad ayaa sidoo kale wuxuu yahay in aanay wax wada hadal ah cidna la galeyn ma laga yaabaa ciidanka TPLF oo hadeertoole dib ugu laabanaya inay arkeen in laga awood batay dibna ay ugu laabanayaan buurahooda masala isdhihi karaa dagaalkii muddada 13 bilood ka taagnaa Itoobiya ayaa maanta soo afjarmaya oo halkaas ku soo gabagabeysmaya dhammaan su'aalahaas waxaan uga tagayaa bulshada na daawanaysa dhanka commentiga ayaad kaga soo jawaabi doontaan waa tahay hadaynu halkaas kaga soo noqono arinta Itoobiya haatanna aynu u soo wareegno dhankaas iyo xubin kamid ah xubinta barnaamijka saaka aan ku soo qaadanayno oo ah ma ogtahay oo alaaba soo diyaariso Fahiime Ahmed Samatar bal waatan aynu eegno Fahiimo iyo saaka ma ogtahay in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee noloshiisa oo dhan uu soo xajay hal mar ma ogtahay in qofka caadiga maalintii uu qosli karo 5 jeer ma ogtahay in masaajidkii ugu horeeyay ee islaamku yeesho uu ahaa masaajidka Quba mase ogtahay in shaygii ugu horeeyay ee Allah uu abuuray ay ahayd samada ma ogtahay in magacyada qaaradaha adduunka ay dhammaan ku dhamaadaan xarafka ay ku bilaabmaan
ma ogtahay in baranbaradu ay 10 maalmood noolaan karto iyadoo bilaa madaxa ma ogtahay in kaneecada nuucaaga dhidig ay tahay taqudhe wax qaninta ma ogtahay in sanad walba 3,000 oo kaadhadhka filimada laga iibsado dalka Hindiya ma ogtahay in salaadii ugu horeysay ee nabigu tukado ay ahayd salaad duhur ma ogtahay in ninkii soo saaray hotmailka uu ahaa nin Hindiya oo lagu magacaabi jiray Subeer Bahatiya waa tahay bal marka kana gaalkacayo iyadoo magaalada gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug habeen hore uu ka dhacay dagaal iska hor imaad ah oo dhex maray ciidanka ammaanka iyo kooxo soo geliya waxyaabaha ammaanka dooriya magaalada oo halkaas uu dhimasho iyo dhaawac ka dhashay ayaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee magaalada gaalkacayo Sanyara waxa uu sheegay inaanay marnaba dagaalka ay kula jiraan buu yiri kuwa khamriga fuuqsada aanan joojin doonin soona qaban doono kana safayn doono goobaha ay keenayaan maandooriyaha waa kan bal isagana aynu xilli xalay iskoorimaad uu ku dhex maray gudaha magaalada gaalkacyo ciidanka Booliiska gobolka Mudug oo howlgala sameynaya kooxo ka ganacsada maandooriyaha waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac kaasi oo soo gaaray ciidamada Booliiska sidoo kale dawladda ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay kooxihii maandooriyaha ka ganacsanayay inta loo hubo hal askari oo ka tirsan ciidanka Booliiska gobolka Mudug ayaa ku geeriyooday iskoorimaadkaasi xalay ka dhacay xarunta kabida ee magaalada gaalkacyo guddiga amniga gobolka Mudug oo shir isugu yimid maanta magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay arrimaha amniga gobolka iyo iskoorimaadkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo ka hadlay shirkii amniga gobolka Mudug ayaa ka hadlay arrimo badan oo xasaasi oo ku aadan iskoorimaadkii ka dhacay xalay magaalada gaalkacyo waxa uu sheegay in ay la dagaalami doonaan intay nafta ku jirto kooxaha maandooriyaha ka ganacsada taliyaasha ciidamada booliiska iyo daraawiishta gudoomiyaasha maxkamadaha maxkamadda ciidanka iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda darajada koowaad ee degmada gaalkacyo maayirka degmada saraakiisha kale ee shirka fadhida amniga bahda saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaanu shirkeenna amniga ayaynu maantay halkan inoogu qabsoomay alxamdulillaah shirku wuxuu ku saabsanaa dee arrimihii amniga xalay ciidanka amnigu waxay galeen howlgal ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qaraxii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhibi jireen iyo canshuurka qaadkii iyo telefoonkii iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xaliyay hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada wadanka keena oo cabtayda maalgeliya oo ka shaqeeya fawdada una fahmay halkaas meel ayaan ku sii noolaan karaa inay tahay ayaa xalay ciidanku howlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada gaalkacyo halkaas waxaa ka dhacay khasaaro nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa waana lagu raajoogay waa la soo qabanayaa hal askari ayaa ku dhintay oo booliis ah Allah u naxariisto howlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo oo munkar suulinaya ayuu askarigaas ku dhintay ilaahay jannaan uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliiska iyo dawladda Puntland waxaanu ilaahay uga rajaynaa samir iyo iimaan askarigaas magaciisa waxa la oran jiray Muxyidiin Cabdi Jaamac sheekeeye naxariista Allah siiyo in dhalinyaro ah oo sarkaal dhalinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis oo ahaa howlgal wanaagsan ku dhintay waana la daba socdaa ciidankii ilaa iyo xuduudda Itoobiya ay sii galeen ciidanka aan ka daba diray nimanka qayb kamid ah halkaas u carareen waana xoojinaynaa howlgalkaas oo hadda ka horna ciidan baan u sameynay waana wadnaayo waa ka nadiifinayna argagixisadii qaybta kale nagu sii waarimayaan ilaahay idankiis annaga iyo argagixis hadba inay shaar gashanayso hadba koor soo bedelayso waa ognahay marka dadweynahana waxaan u sheegaynaa dagaalka argagixisada qaybtii koobaad baa dhamaatay qaybta labaad oo ay fuuleen khamrada soo fuuleen oo ay alkoolistayaasha iyo khamrka ganacsiga ay ku soo biireen inaad qaybtiina ka qaadataan baa la rabaa maalintii kaasi dhamaadana mid kale ay soo fuulaan wadanka hadaan laga nadiifin waayimayaan ama qabiil ha soo fuuleen ama khamraha soo fuuleen ama meel kale ha yimaadeen argagixisadu oo waxaasna la aqoon maafiyada ah oo maafiyadu maalinba meel bay dadka ka soo gashaa qodobka labaad wuxuu ahaa
oo shirkeena maanta lagu soo qaatay arinta dhulka oo dhibaato badan ka timid waxaan sameynay bishii saddexaad ee sanadka bilowgiisii ahayd guddiga xalinta khilaafaadka oo akhyaar ah guddigaas waxaan u sheegaynaa dadweynaha waa guddi dawli ah oo xukunkooda uu xukun dawladeed yahay oo dadka dhulka inay ku kala saaraan aan u xulay oo isugu jira looyaro culimo udiin iyo injineero iyo odayaal dhaqan ah isugu jira oo dadkii ashraaftiisii ahayd qayb ka mid ah oo aan u xulay dhulka inay ummadda ku kala saaraan shaqo fiican bay qabteen dhulka in badan baa laga nasta ciladaa yimid ciladihii yimid qayb waa ka ballanay waxaa la rabaa in horta lala shaqeeyo dadweynuhu xukunkooda ay ogaadaan inuu yahay xukun dawladeed oo aan soo noqosho lahayn waxyaalihii iyaga ay tabahayeen qaybo ka midana iyaga iyo waxaanu isla xiriirinay maxkamadda gobolka iyo qaybta booliiska oo uu hogaamiyo muumin baanu isku xiray waxyaalihii noocaas ahaa iyo dadkii ay xukumeen xukunka qaadan waayay iyo kuwa maartay fal khaldan galay iyo waxaasoo dhan waxaan u daynay iyaga iyo booliiskaan isu daynay qayb waxaa jirta dhibaatada dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka oo dhan kowka ah waa niman kale cagafley maanta waxaan ka qaadanay go'aan iyagii baa mushkilad noqday number 1 horta cagafta oo dhan waxaa la rabaa inay isdiiwaan galiyaan oo dawladda hoose wax cagaf wadanka yaala iska diiwaan galiyaan xafiiska dawladda hoose bariis wax laga bilaabo wixii cagaf wata inay tagaan oo iska diiwaan galiyaan labo cagaflihii lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka u jeexayo uusan warqadii dhuljeexa dawladda hoose wadan waxaa la isugu darayaa ganaax cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro iyo 6 bilood shaqada laga fariisiyo cagaftaas oo ayaan dalka mar dambe ka shaqeynaynin cagafta arinta lagu qabto cagafti waxay noqotay mushkilad waxay noqotay waxa ugu daran oo dhulkii ka shaqeysa oo aan la xallin karaynin oo maalin walba meeshii la istaagaba dhulka iyagu qodaya oo meeshii ay soo xalliyeen oo ay soo kala saareen dadkii ilayaashii wixii lagu kala saaray xataa burburiya marka cagaflayaal dhageysta maanta laga bilaabo cagaf aan register dawladda hoose ka ayn horta cagaf ma kow qof aan warqadii dhuljeexa dawladda hoose ka wadan uma dhaqaaqi kartaan cagaftii u dhaqaaqada waxaa la isugu darayaa ninka cagafta wato dareewalka ka ah waa la xirayaa cagaftana waa la xareynayaa qaybta booliiska lagu xareynayaa 6 biloodna ma shaqeynayso ganax lacageedna waa lagu dhufanayaa intaas ninkii warqada ayaro booliiska iyo registrationka ka xiga inta ninkii qaadan waaya hadda isaga yaqaan meesha ka shaqeynayo gobolka mudug kama shaqeynayo wixii waxa ka shaqeeya waa fidmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo qiimaha badan oo gobolkan muddadii waqtiga adag ahayd sida adag uga soo shaqeeyay qiimahana badan aad baan idinku mahadcelinaynaa hadda waxaa la idinka rabaa wacyigelinta iyo barnaamijyada iyo dadka dhexgalkiisa iyo ciidamada ka warqabkiisa iyo inaad qaadataan qayb door oo wanaagsan baa dalka ku leeyihiin haddaad dabcada waxayna halaysaan cid idinka xoog badan ma jirto haddaad dabcada waxayna hagaajisaan cid idinka wanaagsan ma jirto laakiin annagu hadda sharaf baan idin haynaa saxaafadda gobolka mudug gabi ahaanba dad aad u wanaagsan oo shaqo fiican haya weeye marka maalintiina iyo shahaadooyinkiina iyo sharfidiina waa idin soo socotaa waan idin ogsoona wax aad qabateen muddada adkeyd aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudan gudoomiyaha ka bixin hal su'aal baan weydiiyo goobtan xalay farku ka dhacay waxa jiray hadda koor xilli waddanka ka dhacay dawladda ciidamada qorshaysay deganaan jiray maxaa looga raray gudoomiyaha ciidamadaas waxay ahaayeen ciidamo ku aadanaa xilli kooban aan ugu talagalay xilligii odayaal baa loo saaray iyo guddi inta dhulka la xalinayo oo dadka iyo dhulka dad baa dhulka gatay dadkii dhulkiisa lagu wareejinayo bay ku koobnaayeen marka hore waqti baan hadda uma baahna meeshaan ciidamo la dajiyay iyo saldhig baana dawladdu ka sameeyay raba in mar dhow laga dhiso marka uma baahna ciidamo la dajiyay iyo xaalad weyn waa cabtay inta meel guriga galay wax ku fooqsaday qoryahooda ku soo urursaday way wax la dirirayaa maxamed laki marasan TV kalkacyo waa tahay daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo ee ficil iyo faaqidaada aad uga barateen raadsan TV idina soo jeedinaya anigoo ficil burkud dhidhiya tan iyo intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa ficil oo idin leh qof walba muraadkiisa macsi lahayn midigta Allah ka siiyo